بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي wanaagsan daawadayaal meel kasta joogtaan ku soo dhawaada akhbaar cusub oo uga hadli doono Soomaaliya oo sanadkan gudihiisa ka mid noqon karaysa dawladaha soo saara shidaalka ee caalamka qorshaha hadda soconaya ee la xiriira soo saaridda shidaalka Soomaaliya halka la doonayo shidaalkaas in laga soo saaro cidda shidaalkaasi soo saaraysa dawladda Soomaaliya oo arrintaasi faahfaahin ka bixisay ayaa barnaamijka daawadayaal kaga hadli doona ee mar kale ku soo dhawaada Caalam Media 24 aniguna Cali Rashaq Maxamed ayaan dad nagu cusubtay YouTube-ka subscribe noo saar dad hore noola joogteen video noo maanta waa Jimcaha oo bulshadu ay nasanaysan daawadayaal waxaan ka codsanayaa inaad video-ga iyo YouTube-ka subscribe noogu badisaan si bulsho badan aan u gaarno aan ku bilownay dawladda Soomaaliya ayaa wada qorshe la xiriira sidii shidaal lagu soo saari lahaa wadanka Soomaaliya uga mid noqon lahaa dawladaha soo saara shidaalka sanadkan 2024 inta lagu dhex jiro muddo badan shacabka Soomaaliyeed waxay aaminsanayeen kheyraad iyo shidaal badan oo ka buuxa Soomaaliya hasaatee meesha kheyraadkaasi ku jiro iyo xilliga la soo saarayo cidina maanay ogeyn iyadoo la aaminsan yahay arrintaas ayaana dad badan oo Soomaaliyeed ay horay wadanka uga tageen xilligan oo muhiim tahay in dadka ku nool Soomaaliya iyo si lamid ah kuwa dhalan doonaba ay kheyraadkaasi ka faa'iideystaan ayaa dawladda Soomaaliya waxay shaacisay in sanadkan 2024 qorshe uu yahay in shidaal laga soo saaro Soomaaliya qaybo kamid ah wasiirka petroolka Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo wareysi siiyay BBC-da laanteeda afka Soomaaliga ayaa sheegay in ay bixiyeen ilaa 7 xirmo oo shidaal laga qoodi doono gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan dhulka xeebaha ceelka shidaal ee ugu horeeya Soomaaliya laga qoday ayaa la sheegay in laga qorsheynayo agagaarka magaalada Hobyo oo ku taala gobolka Mudug aana deegaan ka tirsan dawlad goboleedka Galmudug wasiirku wuxuu sheegay 7 xirmood in laga kala bixiyay 3 xirmood oo Galmudug ah 2 xirmood oo Koonfur Galbeed ah iyo 2 xirmood oo Jubbaland ah sidoo kale wasiirku wuxuu sheegay in baaritaanada dhulka lagu sameeyay ay yihiin dhulka badda ee Soomaaliya marka laga reebo Puntland iyo Somaliland waxay ku aadan yihiin ilaa Jubbaland waa 3 xirmo oo ah dhanka Galmudug 2 xirmo oo ah dhanka maamulka South West 2 xirmo oo ah Jubbaland marka todobadaas waa inta la bixin waxaana lagu ogaaday Puntland iyo Somaliland oo ka maqan dhulka qiimeynta lagu sameeyay inay ku jiraan 250 xirmo oo kayd shidaal ah guud ahaan badaha Soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay in dhulka biriga oo dagaal ayaga ay ka jiraan iyo sidoo kale amni darro badan dawladdu aysan gacanta ku haynin aan qiimeyntaasi lagu sameyn qorshaha dawladda Soomaaliya ayaa markii la qodo ceelkaasi shidaal shirkadaha heshiis kula yihiin ay qodaan wixii ka dambeeyay in loo soo jeesto dhulka biriga iyo dhulka dhiman ee Puntland iyo Somaliland isugu jira wasiirku wuxuu sheegay shaqaale ka tirsan hay'adda petroolka Soomaaliya inay dhawaan tageen Galmudug gaar ahaan magaalada Hobyo dadka deegaanka iyo maamulkan ay la soo kulmeen si qiimeyn loogu sameeyo saameynta ka dhalan karta qoditaanka shidaalka deegaankaasi laga qodayo intaan qodista lagu sameeyo shidaalkaasi qiimeyntii ugu dambeeyay ayuu sheegay in markab ay leedahay shirkadda shidaalka qodi doonto oo wadanka ka soo jeeda uusan carrabaabin ay hadda qiimeyntaasi wado markabkaasina uu qiimeyn doono dhulka shidaalku ku jiro oo hadda la soo helay meesha rasmiga ah ee ceelka laga duleelin doono sanadkan hadda aan ku jiraan 2024 3 bilood oo u dambaysa ayuuna wasiirku ku tilmaamay in ay u qorsheeyeen in ceelkaasi lagu qodo saatee waxa uu sheegay shirkadu ay iyadu laga yaabo inay dalbato ilaa dhowr bilood oo kale oo lagu kordhiyo taasina ay ka dhigi doonto ugu dambeyn Soomaaliya sanadka 2025 inay ka mid noqon doonto wadamada caalamka ee shidaalka dhoofiya wadamo badan oo Afrikaan oo shidaal soo saara kheyraadka ka soo baxay wadankooda way ka baahan yihiin shidaalka ka soo baxana qiimo badan lagama siisto sababtuna waxay tahay inaysan haysanin warshadii shidaalka sifayn lahaa Soomaaliyana shidaalka ay soo saaraysa waxay ku dhoofin doontaa qaab ceeriin ah oo haddii ay suurto gasho in warshadii shidaalkaasi lagu safayn lahaa la helana waxay ku xiran tahay dadaalka dawladda Soomaaliya iyo ganacsatada Soomaaliyeed ay ku bixiyaan baahi badan ayaa shacab iyo dawlad ahaanba loo qabaa in Soomaaliya kheyraadka ku jira la soo saaro si dadka Soomaaliyeed uga faa'iideystaan kaalmada caalamka la weydiisanayana looga maarmo daawadayaal qodobkeena uga hadlayna Soomaaliya oo ka mid noqonaysa wadamada shidaalka soo saaray caalamka intaas ayaan ku safmeerina